السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan sameynaa doolsho oo laga sameynayo duqun iyo timir. duqunka waa qamadi sidiisoo kale laakiin wuu ka yar yahay waana wuu fiican yahay. mishaariyada laga dhigtaa, canjeerada lagu darsadaa, soorta laga kariyaa. inta waxaa ii yaala nus bakeeri saliid nus. inta waxaa ii yaala 2 xabo oo ukun ah. inta waxaa ii yaala bakeeri timir ah. inta 3 qaado caano ah. inta waxaa ii yaala carfiso oo hal qaado yar lagu daray. inta waxaa ii yaala baking powder oo qaado weyn lagu daray. inta waxaa ii yaala bakeeri biyo ah. intaas markii la isku qaso korka waxaa looga daraa xabad sooda iyo shamar. kana saliid waaye saxanka la marino ila socda. hadda waxaan walaaqayaa ukuntii oo 2 xabo ahayd. waxaan ku daraa baking powderki oo qaado mugeed ah. caanihii oo 3 qaado ah. waxaan ku daraa carfisadii oo carfisada saanay maxay ahayd ay xirxiran tahay 1 xabo. waxaan ku daraa duqunkii oo 2 bakeeri ah. waan isku soo walaaqay. hadda saxankiian saliid marsana. furunka waa inuu sii shaqeeyaa oo maxay ahayd uu sii kululaadaa. hadduu qabow yahay ma ku hagaagayo. hadda waan boga waxaan ku shubay saxankii. xabad soodadii aan korka uga daryahay. furunkaan gelina isku soo noqod wanaagsan. doolshadii hadda way noo soo karte. xaraarada oo maxay ahayd oo furunkana wuxuu ahay 180 25 daqiiqana wuu ku jira. marka waa kana filhana wa shifa.